Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Waxaynu qaadanaynaa percentage error. Percentage error waxaa la shay qiimihiisa ayaa tusaale wuxuu ahaa $63 buu ahaa. Shay qiimihiisa ayaa wuxuu ahaa tusaale $63. Markaas $63 buu ahaa. Waxaa la gaday ama la iibiyey waxaa la iibiyey tusaale 58 baa la iibiyey. 63 waa kadibna 58 ayaa la iibiyey. Marka khaladkaas dhacay ayaa waxaa la percentage error. Marka khaladkaasi ayaa waxaan ku soo saaraynaa percentage ahaan baan ku soo saaraynaa. Macnaha inta khasaare ee dhacay $63 baa la siinay. Markaas 58 baa la siiyey shaygaas. Marka percentage khaladka dhacay khasaarahaas dhacay ayaan percentage ahaan boqolkiiba meeqa ayuu shaygaas khasaare galay. Taas ayaa la percentage error. Ama haddii kan si kale aan u dhigno maxaa la shay ama la cabiro ayaa cabirkiisu wuxuu ahaa 40 mitir buu ahaa ama 40 sentimitir buu ahaa. 40 sentimitir baa kadibna waxaa laga dhigay 39 sentimitir ayaa laga dhigay. Macnaha 40 sentimitir baa laga rabay inuu noqdo. Waxaa dadka cabiraya waxa ka dhigan 39 oo 1 mitir ay 1 sentimitir bay ka tageen. Markaas percentage-kaas khaladkaas dhacay ayaan percentage ahaan ku soo saaraynaa meeqa percentage ayuu alwaaxaasi gaabtay ama shaygaas gaabtay cabirkiisa 40 laga rabay ee 39 laga dhigay. Kaas ayaa waxaa la percentage error. Percentage error waxaa lagu helaa qaacido oo ah errorka la khalday shayga la khalday oo loo qaybiyey shayga intuu ahaa qiimihii saxda ah oo loo dhuftay boqolkiiba boqol. Aan qaadano tusaalooyin u horeeya waxaa waaye the length of a component is measured incorrectly as 64.5 millimeter. The actual length is 63 millimeter. What's the percentage error in the measurement? Waxaa la dheerarka shay ayuu waxaa la khalday waxaa laga dhigay 64.5 millimeter. Wuxuu maxaa lahaa actual length dhererkiisa saxdan wuxuu ahaa 63 millimeter baa laga rabay 63 baa laga rabay 64.5 ayaa laga dhigay. Haddaba waa maxay percentage error khalad ku jira boqolkiiba ahaan shaygaas la cabiray? Marka horeysa waxaanu sameynaynaa labada cabir ee la sameeyey ayaan kala jaraynaa. Waxaan kala jaraynaa labada cabir ee la sameeyey waa 64.5 oo khaladka ah ayaa waxaan ka jaraynaa 63. 64.5 waa cabirkii khaladka ee la cabiray. Shayga cabirkiisa saxdan wuxuu ahaa 63. Marka 64.5 marka laga jaro 63 waxaa ku soo bixi 1.5 oo dheeraad ayaa la siiyay 1.5 millimeter oo dheeraad ayaa lagu daray. Marka waxaan soo qaadanaa qaacidada percentage error waxaa lagu helaa percentage error asagoo u soo gaabina waxaa lagu helaa errorka oo la sameeyey oo ah 1.5 millimeter oo loo qaybiyey cabirka saxda ah oo 63 millimeter ahaa oo lagu dhuftay 100%. Kadib waxaa ku soo bixi 1.5 markii loo qaybiyo 63 waxaa ku soo bixi 0.0238 ku soo bixi. Markaas waxaa ku dhufataa boqol ku dhufo waxaa soo bixi marka 2.38% ayaa soo bixi. 1.5 tan ayaa waxaad u qaybinay 63 waxaa ku soo bixi 0.0238 markaas boqol ku dhufanay. Marka jawaabta waxaa waaye
2.38 ay soo baxaysa macnaha waxa waaye 2.38% ayuu shaygan la khalday marka aad ayaa ayuu percentage u badan yahay sababtoo ah waa 2. waa ku dhawaad 3% ayaa la khalday marka khaladkaasi waa khalad aad u badan oo shaygaasi cabirkiisa aad ayaa loo khalday oo 2 ku dhawaad 3% ayaa la khalday example-ka koowaad waa ka labaad waxaa la lahay the voltage across a component in electrical circuit is calculated as content 50H using Ohm's law when measured the actual voltage is content dhibic 4 voltage calculate correct to decimal place the percentage error in the calculation macnaha waxaa lahay voltage dab ayaa wuxuu dhex marayay shay dabkiisa ayaa wuxuu dhex marayay qolqolka korontada waxaa la cabiray content dabkaas inuu ahaa ama korontadas inay ahayd content voltage iyadoo la isticmaalayo qaacidada ama sharciga Ohm's law markii la caddeeyo kadib waxaa soo baxay in cabirka saxda uu yahay content dhibic 4 voltage content baa la cabiray kadibna waxaa soo baxay in cabirka sax uu yahay content dhibic 4 voltage haddaba waxaa xisaabaysaa percentage error ka dhacay waxaan ku saxdaa 2 decimal place ayaan ka aragnaa bas maxaan marka horeysa waxaan kala jaraynaa labada cabir ee la sameeyay labada cabir ee la sameeyay kala jaraynaa wuxuu ahaa content dhibic 4 voltage oo khaladkii ah ayaa waxaan ka jaraynaa oo saxda ahaa ayaa waxaan ka jaraynaa content voltage oo khaladkii la sameeyay ahaa markii content dhibic 4 markii la jaray content waxaa soo bixi 0.4 soo bixi 0.4% 0.4 voltage ku soo bixi oo ah dheeraad kale content laga jaray content 0.4 voltage ayaan ka jaraynaa content voltage kadib waxaan soo bixi 0.4 voltage kadib waxaan sameeynaa qaacidan soo qaadana oo ahayd percentage error waxaa lagu helaa errorka la sameeyay oo ah 0.4 voltage oo loo qaybiyay actual voltage measurement oo cabirka saxda ahaa oo wuxuu yahay cabirka saxda waxa waaye content dhibic 4 voltage kadib waxaan ku dhufaynaa 100% waxay la mid tahay 0.4 marka loo qaybiyo content dhibic 4 waxaa ku soo bixi waxaa ku soo bixi 7.936 kadib waxaa ku dhufataa 100% marka waxaan soo bixi 0.79 percentage 7.9 0.79% aan soo bixi oo 2 decimal place ah waxaan sameynay maxaa la koronto cabirkeeda ama shay cabirkiisa dabkiisa ayuu waxaa la cabiray content voltage inuu yahay waxaa la ogaaday inuu yahay content dhibic 4 voltage anagoo isticmaalina Ohm's law haddaba waxaa sameysaa percentage error ka soo saar ku jira shaygaasi la khalday cabirkiisa waxaan soo saartaa waxaan ku saartaa 2 decimal place maxaan sameynaa labada cabir ee midna saxda midna khaladka ayaan kala jarnay midka saxda wuxuu ahaa waa content dhibic 4 voltage oo laga jaray content-ka khaladka ah kadib waxaan soo baxay 0.4 voltage oo ah inta la yareeyay kadib waxaa qaacidadan soo qaadana oo percentage error waxa uu jiray errorka 0.4 voltage oo loo qaybiyay content dhibic 4 voltage oo ah actual measurement cabirka saxda ah kadib 100% aan ku faynaa laba markaas ku qayb waxa ku soo bixi 0.98 ku soo baxaysa kadibna 100 ku dhufo kadib waxa soo bixi 0.79% oo 2 decimal place ah maxaa marka waxa la sameeyay 0.78 marka cabirkaasi la sameeyay ee la khalday waa mid aad u yar oo waa 0. xataa 1% ma dhanno marka aad ayuu u yahay cabirkaasi la khalday